assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa anigoo ah jabuuti xasan cabdi. Channelka aad ama youtube-ka aad iga daawanaysaan ama clipka aad kala socotaan waa jabuuti xasan. Asxaabta waa idin salaamay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muddadan dhowr bilood ah ama 2 bilood, 6aad iyo 7aad iyo 8aad oo maanta ay ama caawa ay tahay 23-kii bishii 8aad 2021 waxba sooma dhigin. marka aniga waxoogaa iska yara xanuunsaday, hergeb igu dhacay. Codkayga xataa caawa waa xabeebaa ku jirto. aad si fiican u maqli weysaan iga raalli ahaada asxaabta. waxaan rabaa bacdulsalaam waan salaamay kulligiin inta ku xiran, walaalaha gaarsiisay 532 inuu yahay malena caawa u marayaa. mahadsantihiin. ninkii wax yar ku siiyey wax badanna waa ka sugaysaa insha allah. asxaabta waxaan rabaa inaan maanta ama caawa aan ka hadlo horta qisooyin ama waxyaabaha aad aragto la yaab leh way iska jiraan. wax kastoo kugu dhacana lama fiiriyo waxa markaas ku haysto. wixii kaa hooseeya dib loo fiiriyaa, ha fiirin wixii kaa sarreeyo. sidaasi marka haddaan nahay dad islaama oo muslim ah, wixii aan markaasi annaga heysano ma eegne. dad badan waxay eegaan wixii ka sarreeyo. qisadaasi haddaan bilaabo waxa ay tahay adigu 2018 2017 abaar xilligaasay ahayd. waxaa dhacday meel bisha cas la yiraahdo oo tarbiyada lagu sameeyo oo ku taalay isbitaalka Digfaar gadaashiisa. bisha cas qof kasta waa yaqaanaa. dadka xanuunsan isugu yimaado meeshaas, dadka naafada, ilmaha lagu qaqalooc qabo lugaha loogu sameeyo, dad badan dhiig karka. marka dadkaas ayaa waxaa loo sameeyaa howlo caafimaad. marka dadkii waa iska taqaanin Soomaaliya, dad badan iska xanuunsan, dad xabado ku dhaceen, dad shil gaaray, dad iska dhiig kar iyo sokor lagu waxsi ka dhigay. marka dadkaasaa isugu yimaada meesha. marka meeshii waxaa jirto qalab yari oo markaasi la kala sugayay, oo qalabka saas uma badneen. waxaa dhacday marka iyadoo marka dadkii ay iska fadhiyaan qarar iska sheekaysanayaan, aniga marka waxaan ku jiray dadkii markaasi fiisa tarbiyada watay. marka bukaan ka mida bukaamada markaasi sugayay qalabka markaasi la rabay inuu ku jimicsado. meel marka aan ii fogeyno qofkaas fadhiyey waa nin raga. da'diisa waxaan ku qiyaasay 47 48, adigu konton kama gelin. marka adigu mar dambe aan iswareysan doonaa. marka ninka wuu fakarayay, aad u fakarayay. wuxuu ka madaxu darbiga ku hayay, aad ayuu marka u murugeysnaay. wax kastoo horta kugu dhacana waa iska qadar alleh, samar iyo dulqaad ay u baahan yihiin. marka jimicsigii markaan dhammaystay aan ninkii u tagay, waa warsaday, waa salaamay. xaaladiisana waa ka muuqataa inuu iska murugeysan yahay. marka ninkaasi markuu ii sheego aan weydiiyey xaaladiisa, wuxuu igu yiri moota ila gadoontay. marka lugta jilibka ka jabay, kabkii iyo wixii biyaha maaqaan ka qaldamay. adigu lugta way taagan tahay. marka lugta lug balaamaysa maahan, laakiin waa nin socdo. lugta kale waa u caafimaad qabtaa, waa nin socdo. marka dad badan oo ka liito oo aniga laftiga markaas wheelchair-aan ku socdaa, oo markaasi asaga waa ila fiican yahay. waayo haddii qofka kaa hooseeyo fiirisid waa samreysaa, kan kaa sarreeyo lama fiiriyo, waayo dad kaa daranaa jiro.
marka waxaa dhacday markii ninkii aan weydiiyey wuxuu igu yidhi moota ila gadoontay saasay lugti iga noqotay, aadan ugu xumahay dhibkaan lugti iga dhacay oo lugtida saas u istaajiyey. waxaan ka jeclaa lahaa ayuu yidhi in madaxa wax iga dhacaan oo lugaha ay ii fiicnaadaan oo markaasi socodkayga iyo xarakadeydii iyo wixaygii aysan iga qaldamin, saasaan ka jeclaa lahaa uu yidhi. marka waxaan idhi niyow horta qadar kasto iyo wax kastoo dhaco waa amar ilaahay, in lagu sabraana fiican. xubnahaaga ama jirkaaga in wax gaaraana xugun ayay ahayd oo lugtaasa wax kaa gaareen. marka niyow aniga waad ii jeedaa wiljeeraan saaranahay, ma socon karo, musqul ma geli karo, waa lay caawiyaa, wiilkaasaa ila socdo wax ii qabto. marka iska samar, waxaan ku gaarana dee waa wax kuu qornaay. haddaad socotidba oo macnaha aada u baahnayn bili-aadan aadan dhehaynin waxaas ii qaba iyo musqusha igey haddaad dhehayn, intaas yartaa waxba maahan, waa ka daaweysamaysaa insha allah. marka fiiri bal dadkan maanta wada meesha yimid, fiiri dadaa barel lagu wadaa, dadaa lagu wadaa wiljeer oo anigaba markaas kamid ah. waxaan idhi fiiri aniga xaaladeyda bis. marka ninkii xoogay waa aad uu marka u niyad qabowsaday. marka wuxuu is yidhi alla ilahe wacdiga bili-aadanka markaa wax wacdisid wax u sheegtid waa xoogay waa niyadda u qaboobeyso. ninkii markaan sii warsada nin ilaahay u wadsiiyo u ahaay, 6 cunug camala ii joogto yiri oo markaas dugsi dhexe dhigto. marka waxaa idhi samar qisadaas. marka qiso kaloo lamida 2014 aan hadda ka hor hindiya aaday. bili-aadanka markuu xanuunsadana qalbigiisa waxbaa galo oo wuxuu isleeyahay niyo waxaan ku haysto waa aad u culus tahay oo dhibaato weynaan kugu dhacdo iyo waa isla hadlaa qofka markuu xanuunsado. marka hindiya markaan tegay aniga 2014 ahayd, aniga lugaha labada lugooda markaasi neerba iga hayay, xabada igu dhacday. kaliibadeyda ka horeeyo oo hadda youtube ku jiro haddaad daawatidna waa arkaysaan. marka hindiya markaan tegay anigoo markaas iska dhaadhiciyey inaan micnaha aan wax kaa daranba ma jiro qalbiga isaga haysto, aan marka waxaan arkay wiil markaas isbitaalka la keenay oo xabad qoorta ugu dhacday, labada lugood, labada gacmood, qoorta intaba ay dansan yihiin oo afka cuntada loogu guraayo. runtii aadaan u murugooday. anigana alxamdulilah la ilmiyo waxba kaa maqno, laba lugood haday tahay maanta haddaad gacmaha wax ku qabsanayso, cuntadaada aa cuni karto, wiisa qaada karto, wax kaa maqan male. marka aadaan u niyad qaboobay. marka waxaa fiican marka dhib kugu dhaco ha fiirin waxa kaa koreeya waxa kaa hooseeya, fiiri wax kastana waa qadar alle. marka in lagu samro ayayna u baahan tahay. marka asxaabta qisadaas waxaan uga hadlayay micnaha haddii lacala adiga il lagaa haayo oo il wax kaaga dhaceen, waxaa macquulan inaan labadii indhood ahayn. dheg haddii wax kaaga dhacdo inaan labadii dhagood dam ah oo dhagool ah. ishaas marka qofka ku dhacday oo labadaba dam ay tahay, ushaa loo haayaa, waxba uma jeedo. alxamdulilah rabbil caalamiin. haddaad aragta gacan haddii wax kaga gaaraan inaa labada gacmood ibir ka ah, lug haddii wax kaga gaaraan labada lugood inaa ibir ah. marka ha fiirin marka mar kasta waxa kaa koreeyo, fiiri waxa kaa hooseeyo. adduunkaana waa qadar itixaam, addoonkiisa ilaahay ku itixaamo. marka asxaabta akhyaarta saas ayaan sidaasi inagu baraarujinayaa. marka waa mahadsantihiin. waa Jabuuti Xasan oo idinka soo salaamayo Masar Qaahira. marka asxaabta waa mahadsantihiin. heerka aad gaarsiiseen youtube-kana waa ku mahadsantihiin. intaas in ka badanna gaarsiiya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.